Faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar nimadii hore ee saaka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Wararka aan ka helayno deegaanka Buulaxaaji oo ku dhow xirada Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalo u dhaxeeya ciidamada maamulka Jubbaland oo garabsanaya kuwa bangarafta dowladda Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay ay ka dhaceen halkaas. Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu dhiftay ilinka hore ee saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ku lahaayeen nawaaxiga Baarsanguuni, waxaana la sheegay in ay xigtay rasaas xoogan ay isweydaarsanayeen labada dhinac. Wararka ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in dagaalku intuu socday ay u suura gashay dagaalyahano ka tirsan xarakada Shabaab inay gudaha u galaan xirada isla markaana ay kula dagaalamaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Dadka ku sugan halkaasi oo la hadlay warbaahinta laftooda waxa ay sheegeen in ay maqlayeen huganka madaafiic culus ay isweydaarsanayeen labada dhinac ee ku hardamaysa gacan ku haynta xirada Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in ay fashiliyeen weerarkaasi oo saaka ay kula soo saladeen dagaalyahano ka tirsan xarakada Shabaab, waxaana uu tilmaamay in ay dileen in ka badan 10 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Ma ahanse markii ugu horeysay weerar cinkaan iyo Al-Shabaab ay ku qaadaan xirooyin ka mid ah deegaanada maamulka Jubbaland. Sanadan aan ku guda jirno 2022 ayaa la xaqiijiyay in ka badan 7 weerar inay ka dhaceen xirada Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose, taas oo 30 kiiloomitir dhanka bari kaga aadan magaalada Kismaayo. Sidoo kale ciidamada Al-Shabaab ayaa la sheegay inta dagaalku uu socday in ay adeegsanayeen hubka culus isla markaana ay kula dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa bangarafta loo yaqaano ciidamada maamulka Jubbaland. Ma ahanse markii ugu horeysay weerarada cinkaaniya ay ku soo laabtaan deegaanada maamulka Jubbaland. Maalin ka hor ayay ahayd kadib markii ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa Kenya weeraro ay isu ekeeyeen saldhigyada ay ku leeyihiin ciidamada Kenya. Weerarna ay ku qaadeen Al-Shabaab ee degmooyinka Qooqani iyo degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose, kaasna Al-Shabaab ay guule ay ka sheegteen.